الله أكبر الله أكبر عشر بلادنا سو أبابنا odayaashii waxgaradka degmada xudun ee gobolka Sool ayaa ay sheegeen in aad ugu xumaadeen gumaadka lagu hayo shacabka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Odayaashan ayaa Soomaaliland ugu baaqay in guud ahaan ka baxaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, sidoo kale waxay ganafka ku dhufteen odayaal ku hadlaya magaca Maxamuud Bari oo ku shiraya hoteelka Xabiib ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxayna ku tilmaameen inay yihiin odayaal u nugul siyaasadda, dad iyo daltoona aan rabin, damiirkooduna aad u hooseeyo. waxaana hadalladooda ka mid ahaa sida tan. halkan maanta isugu yimi oo shirshiraad ku qabanaya dadweynaha degmada xudun ee gobolka Sool oo isku dhan odayaal dhalinyaro waxgarad mutacallimiin isimo intaba halkan aan ku dhannahay waxaanu ka hadlaynaa oo ay daaran tahay maanta press conference iyagu ama shirkan jiraayid xaaladda ka taagnayd maalmahanba degmada Lascaanood gobolka Sool ka socotay xasuuqa ba'an ee lagu hayay dadka iyaga maatadayada caruurtayada ee sida xasuuqa ee sanam ugu sameeynayay ayaanu maanta isugu soo baxnay halkan inaan wax ka nidhaahno waxaan leenahay oo u sheegaynaa taliska Soomaaliland ee jooga Hargeysa ee Muuse Biixi oday ka yahay iyo Saleeman Gaali iyo ninka la yiraahdo ina kaahin enough is enough baanu leenahay enough is enough intaasi waa ku filan tahay xasuuq waa ku filan tahay haddii aydin wax kala doonaynin intaasi xasuuq waa ku filan tahay mana aha midaanu ilaawayna maaha midaanu ka dulqaadanayno haddaan nahay bulshada Sool iyo Sanaag iyo Cayn degtana maaha maantana waanu ka kacsannahay arrinta xaaladuna waad ogtihiin waxa soo socdaa waxay keeni doontaa xamabare libaax bay soo wadaa baa la yidhi Muuse Biixi waxay keeni doontaa in daarood iyo isaaq aad isku jabisay keeni doontaa alla is xasuuqo kaad ka cabanaysay baad maanta saadsanaysaa wuxuu yidhi ninkii u gashaday baalka la yidhaahdo biciidka xabadda ee halka xabba haystay ee sakaaradu ay ka eriday sakaaroy kuma gashan buu yidhi laakiin saadso waa saadsanaysaan baan ku yidhi waa saadsanaysaan waxaanu leenahay isimada Soomaaliland jooga ee beesha isaaq ee annagu hawsha lama qabno adeer waxay caruurtayada leynaya iyo maatadayada Lascaanood ku xasuuqaya waa wiilashiinii weeye oo ka soo duulay dhulkiina weeye wiilashayadu ma joogaan dhulkiina mana aadin hubna uma qaadan waxaad ogaataan ninowna kama galgalan kartid xasuuqa nin kasta way saameynaysaa beeshii heerisi saxaaqa ee haddaba hawsha aan raalli ka ahaynay kala bax raggaaga Lascaanood dhulka yaga nooga baxa waxaad ogaataan taariikho hore aad ku caban jirteen oo dhulbaanta kaga caban jirteen harti bay tagaysaa oo daarood bay tagaysaa taariikhii xaabeeye suldaan la faruug geelaysaa oo dhan la isugu keenay bay tani tagi doontaa taasay wadaa oo saadinaysaa waxaad ka heshaan baad leediin intaa waxaan ku dhaafayaa nimankaas soo duulay ee dhulka iyaga ku soo duulay waana iska dhicin karnaa waana iska dhicinaynaa taariikhda noo taalana waad ogtiin waadna taqaanin waxaan kaloo doonayaa inaan u gudbo ummadda dhulbahantaan doonayaa inaan u gudbo dhulbahanta waxaan leeyahay mid boohood la farhareeri ilaa iyo jiidali hal naaskeed wixii gaadha qorigiina qaata difaacda dalkiina wuxuu yidhi dhaqashiyo marbay kaa yihiin dheragu xaaraane nin dhirbaaxa quureed dugsaday dhaqayadeed maal iyo dhashaaday sugtaa xaajada dhooro taabid dhulbahantow taariikhda aynu leenahay waad baabi'iseen taariikhdeennii geed hadhaynu lahayn oo hadhaca Soomaaliya oo dhan baynu u keenay gobonimada maanta in gaala joogii uu ku xasuuqa caruurteena gaala joogii kaynu ka xoreynay 6,666ku ay ugu dhinteen jid baare inay macatabka ka furaan baa maanta caruurteena ku xasuuqaya iyo dumarkeena Lascaanood ma yeeli karno damiirkeenu ma qaadan karno dadnimadeenu ma qaadan karno kamana dul qaadanayno intaasaan leeyahay waxaan leeyahay maanta hadday tahay kuwii islaayay annagu haddaanu nahay beesha xudun annagoo ku hadlayna afka Maxamuud Garaad waa mid ninkii shaka kaga jiray colaadda maanta ka taagan Lascaanood wixiina dhex yaalay waa mix waa tuurnay dismis wey maanta waynu midoobaynaa cadow waynagu soo dulay waxayni ilaaba laba walaale hadday islayso oo cadow muuqdo adeer cadowga isu raacaan doqonnimo yaydin duhadin laba bahal biriirow hadday kaa isugu baydho hadba kii bahnimo ku xigaa la isu buriyaa buudi maanta waxa taagan jaamac siyaadi oo gaariyahan iyo Maxamuud Garaadba waa kamid dhulbahanta waa ka midaysan yahay xabadda qaata waxaan daarood waa ka midaysan yahay Soomaali way waa ka midaysan tahay
waxaana lagu dilayaa waa calankii Soomaaliyeed xasan shiikhow calankii Soomaaliyeedna lagu xasuuqayaa intaas waa intaa rag badan baa sugaya hadalka xilli kulul waan joognaa laakiin dareenkayaga ayaa kacsan annagoo la qaybsanayna dhiigga carruurtayda iyo maatada la daadinayo waxaan hadda u gudbayaa odayaasha xalay hadlay ee maxaan ku idhaahdayay dadka aan mas'uulka ahayn ee xalayto inta la ururiyay la isugu geeyay meesha ee loo qaybiyay qaraamaadka loo qaybiyay ee la yiri maanta waxaad ku hadashaan afka Maxamuud Bari adeer Maxamuud Bari maanta waxan wuxuu qaadan karo maaha waana laga wada hadlayaa waana dil ninka alla ninkii hawsha ka qayb galay ee Maxamuud Bari ee sawirkii xalay ka soo baxay wax alla wixii Maxamuud Bari talaabo degdeg ah ka qaadeen intaasaan leeyahay dadka oo dhan waxaan leeyahay hal kaco waa jihaad culimadeena waa ku baaqday caruurtaada iyo maatadaada iyo dadkaaga hadii la leeynayo dhabarka sii jeediso waxa weeye ehlu naar baa tahay waa jihaad wassalaamu calaykum waraxmatullaah waa muuqdaa labana maaha waxa weeye Muuse Biixi iyo jabada uu soo dirsaday SLM taa waxaan hayn oo naga dhaxeeyaa ma jiro xabad weeye wixii noo dhaxay xabad baa noo dhaxa wax kale iyo wax maamul iyo wax kale oo noo dhaxeeyaa ma jiro waxa weeye habeena ma jirin ninka maanta isiri qaramaad yar baa dad intaad kala baxdo odayaal madaxu xanuunaya intaad meel ka urursato baad codkii Maxamuud Bari ku helaysaa oonaya Maxamuud Bari baanu mas'uul ka nahay dadkii bukay cusbitaalada qaarkood jiifay William yaraha yaan 20 sano cid wax u diran dadka urursaday isiri codkii Maxamuud Bari baa ku helaysaa waa niman habeen jirin waxaan leeyahay ninka la yahay ina koore inuu bani waxba moodaya inta inuu macna dhaama oo yahay nin waa wasiir baan mooday wasiir weeyo wax isla inta ugu macna dhaama war ma $30 baa ummadan oo la yaqaano karaamadeeda iyo sharafteeda inta odayaal xanuunsanaya la urursado baa la yiraahdaa codkii Maxamuud Bari waxa soo yiri wariyaa war wax laga qajira wax laga qajiro ninka weyni aanu hidisin ayaa jira waxa uu leeyahay SLM iyo Muuse Biixi xabad baa inoo dhaxa waana idaaminana alihina la haduu yahay nooga baxa ascaanood oo dalkayga nooga baxa waxa wadaan wax laga dul qaadan karo maaha wax laga caruurtii yaryarada iyo ardaydii baan ognaa jeelka lagu xasuuqaya ummad waxa ka dul qaadan karta maaha ummad ka dul qaadan karta maaha iswada gaarsiiya xabad baanu ka xignaa maanta waana noo jaad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uqaal iyo odayaal iyo nin garbood leh sida xamaasadu leh ama sida waajibka ay u yimaadeen oo uga qayb qaadan aad baan u soo dhaweynaya waxaan rabaa inaan idhaahdo hadalka hore ee odayaashii hore yiraahdeen waa iigu dhantay intaas la qaba inta ay yiraahdeen baan la qabaa runtii waxna kama aanay tagin kuma darayo wax badan waxa aan rabaa inaan idhaahdo odayaashii laascaanood ka hadlay kamarada isu dhigay aflagaado iyo xaasha naga iman mayso laakiinse waad ku degdegteen haddii aad magaca wax u keenaysaan ama aad ku medelaysaan wixii aad ahaydeenba waad ka hor dhacdeen wuxuuna haddii ay meeshooda la dhigi waayo waxay noqdaan wax khasaaray ayay noqonayaan arrinkaas wuxuu noqday arrin lagu khasaaray buu noqday meel dhiig daadanayo inaad tidhaahdaan heshiis baanu qaadanay waa la qaatay heshiiska nabadda iyo heshiisku waa shayga adduunka ugu qaalisan laakiinse meesheedii ma ayan ahayn meeshii aad ka hadasheen meesheedii ma ayan ahayn aad tidhahdaan heshiis baanu qaadanayna waxay inaad waqtigeeda sugtaan waxa aad qaadanaya garaad jaamac garaad Ismaaciil baaq u sii daayay waa soo dhaweynaya oo uu yiri isimada iyo waxgaradka dhulbahantaha isugu yimaadeen laascaanood waxa rabaa garaadka in idhaahdo anagu arrinkaas soo dhaweynayna ma dhamaystirna ninka laascaanood imanaya oo xabadi ka socoto dhafoorka dadka xabad lagaga hayo amnigiisa ayaa sugaya yaa damaanad qaadaya laascaanood waxaanu ku iman karnaa xabad haddii la yidhaahdo ha yimaadeen isimadu iyagoo raggoodii iyo hubkoodii wata waa inaad u sheegtaa yidhaahdaan imaada nin walba adoo istifaacaya ama waa in la helaa meesha
ama waa in la helaa meeshaa soo bannaan oo laga baxay oo aan hal askariyihi aanu joogin oo laga baxay oo nimanka SNMta iyo jabadahaasi ay ka dhamaadeen labadaas midun lagu iman kara labadaas midun lagu iman kara waxaan rabaa ugu dambayntii inaan idhaahdo reerka la yiraahdo dhulbahanta meeluu joogoba waa inuu dagaal u diyaar garooba iyo difaac waa inuu u diyaar garooba waxaan oran khudbadii wasiirka baarlamaanka waa maqlaysay cabdihalas intaasoo sanadood baa fadhiyay buu yidhi bullay quruumaha halkaa degan maanta iyo dowladda dhexe xasuuq baa lagu hayay waa run maanaan caban cid lama dagaal shucuurtaydu waa taa muuqata kana laafi mayno ilaa xataa yoon hubkaanu sidanaa maanta nin iska hadla oo u shaqeeya Soomaalilayna shirna guma matalo qaybaha bari kuma matalo qoladana waa noqnaqana xaleedis gidigood waa naqan waadanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed maxamuud cawiil kawte degmada xudun ee gobolka Sool.